الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan akhyaarta ku xiran janaalka toosana technical kusoo dhawaada muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkugu soo gudbiyo sidaad gebi ahaanba u daleedi lahayd mesajyada gmailkaaga ku jiro hal mar adigoo hal mar daleedahay yacni gmailka markaan rabno inaan mesajka daleedno sida caadiga waa ogtihiin gmailka markaa rabtid inaan mesajka daleedid markaa meeshaan joogto ama applicationka gmail hal mar inaad daleedid yacni aad ay u adag tahay waxaa u baahan tahay mid kasta inaad doortid ka inaad riixdid oo aad doortid kadib kan kale aad sii riixdid kan kale aad sii riixdid waa dhib badan yahay marka hal klik saa ugu daleedi lahayd ayaan rabaa muuqaalkan inaan markaasi kugu tuso idinkiisa insha allah marka soo dhawaada markaad rabto marka inaad daleedid dhammaan gmailkaaga mesajyada kusoo dhacay oo hal mar inaad daleedid markaad rabtid waxaad tagaysaa applicationka loo yaqaano chrome markaad chrome ku furto qaybta sare ee chrome-ka waxaad ku qoraysaa gmail login mail sida hadda kor kaaga muuqato gmail login mail kadib waxaa leedahay go markaad go dhahda kadib wuxuu ku keenayaa sida noocan ujigan ku keenaya website-yadan ku keenaya waxaad sameynaysaa waxaad doonaysaa saddexda ilig sare tag desktop site dooro markaad desktop site doortid waxaad ka xulanaysaa halkan qaybtan ay ku qoran tahay google ama gmail google linkii ugu soo horeeyaba markaad doortid kadib wuxuu ku keenayaa noocan marka meeshaan ku keenaa waa meesha aad ka daleedi lahayd dhammaan mesajyada gmailkaaga hal mar adoo markaas ka xulanayo ama dooranayo kadib wuxuu ku keenayaa wejigan soo dhaweey qaybta sare waxaa ujeedaa meeshaan select saaran hal xabaad dooran kartaa qaabkii xaniis kuwa akhrisa kuwa la akhrin wax hal mar waa saas sameyn kartaa laakiin meeshaan waa all hal mar markaad dooranay ama waxaad sameyn kartaa adoo meeshaan joogo inaad hal mar ficta saartid all markaasi waxaa ujeedaa hadda markaa gadaal u bixiyo dhammaan mesajyada gmailkaaga dhan wuxuu ku saaray select u saaray marka halkan inta gmail inta mesaj aad dooratay ama address intuu ka sheegay wuxuu ku dhahay mesajyada dhan waa 351 conversation qaybka prime ku jiro primary hadda markaasi waxaa dooran yani konton dooran meesha u sii hooseyso markaad tagtid konton sii dooran xasmeeyna marka hal mar dooratay waa helaada kullu ku saaran yahay kadib waxaa leedahay calaamad delete ko kan ah delete jida raadin ko galay kadib hal mar delete doonaa xidhan meesha ku jiray waa ujeedaa wuxuu sameeyey dhammaan wuu daleeday wixii primary ku jiray dhan wuu daleeday marka hadeed mar konton yani soo doortay hadda waxaa ujeedaa 1 ilaa 10 of 300 hal marka qaybta kale waa kana wixii oo dhanka youtube wixii ka imaaday iyo maadaama ay tiri badan yihiin noocaas markaas hal mar select taabanaya hadana select fuulayo 300 hala ku haray waxa markaas hadda aad tuuraysaa waa konton aad tuuraysaa konton aad tuuraysaa kadib waxaa leedahay delete kadib wuxuu sameynaya downloading ama raadin uu sameynayaa kadib uu delete hadan kontogaas 300 halaha ku jira hadda wuxuu ku dhahay kana 51 ilaa 100 250 iyo waxa soo haran jido hataa kuwa cusub ilaa kuwa waxaa gey kartaa ugu dambeeyay hadan inta ka xulinaysa hal mar wixii sida markaas u dhameynaysaaba marka sidaas ayaa loo dileedaa hal mar gmailkaaga one click ayaa markaa ku dili kartaa dhammaan mesajyada meesha ku jiro muuqaalkaasaan jeclaysta inaan idin la wadaago fadlan haddii aad ka faa'iiday muuqaalka like saar haddaa janaalka cusub tahay subscribe saar lana wadaag asxaabtada oo muuqaalka usii share inta aan ku kulmin muuqaalka xigo waxaa idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh